Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa ka hor yimid mooshin muddo kordhin ah oo maanta la horgeeyay baarlamaanka. Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa sheegay in mooshinkan uu wiiqayo dadaalada dib u xoreynta dalka, wuxuuna sheegay in madaxweynaha Soomaaliya ay naftiisa halis ku gashay diidmo muddo kororsi ah oo dowladii hore ka dhan ahayd. Annaga ka baarlamaan ahaan waxaa mas'uuliyadda ay inaga saaran tahay ilaalinta iyo xasilinta dalka. Waad ogtihiin extension waxaan ka soo marnay halis waxa u gashay nafta madaxweynaha xafiiska fadhiya. Miyaana la ogeyn mise waa la hilmaamay nafteena halis u gashay in dalkan muddo kordhin laga sameeyo, ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur. Annagoo dalka waxba u qabanin in aan saakay ka bilowno extension muddo kororsi maxay keenaysaa? Dadka wayna la yaaban yihiin fursadan haysanaa muddo 3 sano ah aan kaga shaqayn karno dalkan sidii loo gaarsiin lahaa doorasho qof iyo cod ah, ayuu yiri Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur. Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa ka mid ahaa xildhibaano maanta ka hor yimid mooshin ku saabsan muddo kororsi oo ay baarlamaanka hor keeneen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka. Mooshinkan ayaa qayb ka ahaa heshiiskii qaab dhismeedka doorashooyinka Soomaaliya ee dhawaan lagu ansixiyay shirkii golaha wada tashiga qaran.